السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين كسو دوادا برنامج كله برنامج دي نكو قبن شرني درويش تي في برنامج كان أيا حدي لها إدمه وحانو قدقني برنامج قارة أو أنو ugu magac darnay xagee lagu qaban doonaa doorashada xildhibaankaaga waxaan malaynay ciwaanka sidaan ugu qoray inaan yara sax weeye insha Allah barnaamijkan gaarka ah ayaa hadii ilaahay idmo si aad ah waxaan uga hadli doonaa sida aad la socotaanba arrimaha عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد السلام ويا عليكم السلام كتير ولقد ما أنا فرن لكن إن شاء الله عبد الفتاح أديك أنا كوكو فرينا هدي إلى هاي إدمه برنامج كان سيدا ندين شاقي وبرنامج قارة وحانو كهدلينا الرماها دورشوينكا سوماليا سيدا لسعطان با هدي إلى هاي إدمه دوان وحا كدع دونا ودنكا سوماليا دورشوينكا oo lagu soo dooran doono xildhibaano cusub oo matali doona golaha shacbiga kuna matali doona dhammaan bulshada Soomaaliyeed sidaas oo kale xildhibaanadaas ayaa waxa ay dooran doonaan madaxweynahaasna dabcan wuxuu dhisi doonaa dawladiisa isagoo u magacaabi doona ra'iisul wasaarahaasina waxa uu dhisanayaa xukuumad wax walba waxa ay ka soo bilowdaan gunta halka ay waxaasoo dhan ay ka soo bilaamayaan marka ugu horeyso waxa weeye doorashada xildhibaanada hadii ilaahay idmo marka barnaamijkan ayaan waxaan rabnaa si gaar ah inaan uga hadalno ciwaankan waa saxaya gaar ahaan xildhibaanada sida aanu maqlaynay inkastoo la yiri heshiiskan waxa loo gudbin doonaa baarlamaanka waddanka Soomaaliya hase ahaatee waxaan rabnaa barnaamijkan inaanu ku qaada dhigno oo aanu aad uga hadalno arrimaha doorashooyinka iyo xagee adigoo aad jeclaan lahayd in lagu qabto doorashada gobolkaaga ama degaankaaga ama adigu degaankee ayaa jeceshahay in lagu qabto waxaan rabay inaan sidoo kale inaan idinla wadaago sababo waxaa jira ay dadka qaarkood u doorbidaan in deegaanada qaarkood lagu qabto sababtoo tahay waxa ay deegaanka lagu qabanayo ay u soo kordhisaa dhaqaale iyo horumar waxaan rabnaa sidaas oo kale shaashada inta uu barnaamijkan aan idinla wadaageen in idinla wadaago muhiimiyadda ay leedahay doorasho sideedaba waxa weeye in lagu sameeyo dawlad cusub sidoo kalena deegaanka lagu dooranayo mar walba waxa ay u keensataa horumar sidaad ogtihiin horumarka ay u keensato caasimadaha gobolada iyo tan dawladda federaalkaba waxaa ka mid ah ganacsiga oo uu kow u yahay hoteelada hoteelka hadda muuqaalkiisa aragtaan dabcan waxa uu ka mid yahay hoteelada ka dhisan magaalada Garowe dabcan horumarka faraha badan ay samaysay ama ay ku tilaabsatay Garowe oo kalena waxa dadka badankii ay ku tilmaamaan maadaama ay maamul goboleedka u tahay Puntland ay u tahay caasimad sidoo kale magaalada Muqdisho muuqaalkan aad arkaysaan ganacsiga dhinaca maqaayadaha tusaale ahaan dhulka lagu qabto dawladda xagga waxa ay u soo jeedaa sidaas oo kale dhaqaale xagga ganacsiga maqaaxida muuqata aad idinla wadaagay iyadoo sidaas kalena waa kamid ah maqaayadaha ugu caansan dabcan magaalada Muqdisho sidaas oo kalena faa'iido badan ayay ka heshaa bulshada meel walba ay tahay marka deegaankeeda lagu qabanayo marka waxaan rabnaa inaanu ka hadalno sida aad ogtihiin dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa igu maqaalaa in dadaal badan ay ugu jireen markii koobaad in doorashada Soomaaliya ka dhacaysa ay noqoto cod iyo qof sida aad ogtihiin siyaasiyiinta iyo gobolada qaarkood inay aad uga soo horjeesteen arrintaas dhinaca kale haddana waxa la isku dayay deegaan walba ama degmo walba in ay doorashadu ay si gaar ah ay uga dhacdo haddana waad ogtihiin siyaasiyiintii ka soo horjeestay in ay arrintaas macquul noqoto si ayan xor ugu noqon dadka deegaanaadka in ay iyagu soo doortaan codkooda iyo qofka ay rabaan arrintii waxay ku soo ururtay haddana 101 haba ahaatee waxa haddana aad moodaa sidii ay rabeen madaxda qaarkood in ay si ay u kontroolaan xildhibaanada imanaya ama ka soo qayb galaya baarlamaanka in ay yiraahdaan waxa lagu magacaabayaa laba magaalo oo kamid ah labada magaalo naftigooda ula jeedo siyaasadeed ayaa ka dambaysa oo halkii hal magaalo laga dhigi lahaa laba magaalo ayaa laga dhigay waaye barnaamijkaas ayaanu ka hadlaynaa qof walba codkiisa waa u xor cid gaar ah oo aan barnaamijkan aan ku marti qaaday ma jiro laakiin qofka ugu horeeyo oo barnaamijka hadda ku jira waxaan u malaynayaa waxaad iga soo wacday New Zealand Soomaa أحمد أستراليا كاسو وايه أستراليا أوكي كسر دوو أستراليا ما قصة بعيدين تها حلقا
xilli dambe noo tahay adigo afartii bay noo tahay hameenimo. waayahay kusoo dhawow barnaamijka fikirkaaga iyo aragtidaada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan arrimaha xildhibaanada iyo deegaanaadka lagu soo kala dooranayo fikirkaaga iyo aragtidaada. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam. axmed laari awalan ilaahay subxaana watacaala waan u mahad celinayaa, marka labaadna adaan ku mahad celinayaa iyo barnaamijyadan faraha badan aad ka samaysid arrimaha soomaalida. si wanaagsan baanu kuu maqalna anigii dadkaba. marka waxaan rabaa inaan u gudbo deegaanada aan kasoo jeeda anigoo gobolada sool sanaag iyo cayn deegaanada SC. run ahaantii waxayna ka mid yihiin meelaha ugu liita deegaanada soomaalida. waxaan qabaa fikrada ah in ay laga soo doorto deegaanada maadaama gobolada iyo gobolka sool gobolka caasimada maamulkii qaatimo la oran jiray gobolka sool uusan gacanta ugu jirin. waxaan jeclaan lahaa in loo farabaneeyo dadka deegaan kale xildhibaanadooda meeshay kasoo dooranayaan oo siiba deegaamo badan oo xoraa jira sida gobolka buuhood gobolka cayn magaalada buuhoodle deegaana ay kamid yihiin boocame deegaana ay kamid yihiin werwood taleex deegaanadaas oo dhan waa ammaan sidaan qabo waana lagu dooran karaa. waxaan jeclaan lahaa in xildhibaanada kasoo baxaya gobolada sool sanaag iyo cayn inay ka madax banaanaadaan maamulada dhinaca hareeraha ka xiga sida Somaliland ama Puntland siiba Puntland Somaliland wax hadda gacanta ugu jira ma jiraan. waxaan jeclaan lahaa in lagu soo doorto gobolada deegaanada soo xusay. waayahay marka aad leedahay deegaanka lagu soo doorto adiga aragtidaada haddaan ku weydiiyo maxay ku kala duwan yihiin qofka marka magaalo kale uu ka yimaado iyo marka uu ka yimaado deegaankiisa? runtii wax weyn baa farqi weyn baa u dhaxeeya. example haddaan soo qaato waxaa u dhaxeeya deegaanka samcadiisa oo kale xagga dhaqaalaha oo adigu aada baxustay xildhibaankaas meesha codka aduu dhinacaa ka go-ay laakiin ku soco. runtii samcad weyn baa ku jirta deegaanka hadday noqoto xag dhaqaale hadday noqoto xag horumar hadday noqoto is-aaminaad iyo maaragtay deegaanada inta badan meelaha doorashada lagu qabto haddii xildhibaanka lagu doorto oo kasoo baxdo deegaanka samcadiisii baa soo baxaysa waxaa soo baxaya deegaanka wuu muuqanaya waxyaala badan baa muhiim u ah. marka waxaan anigu ku talin lahaa dadka aqoon-yahanada ah dadka waxgaradka ah dadka culimada ah inay isu taagaan sidii maamulka ay uga gacanta ugu dhigi lahaayeen xildhibaanadooda oo ay ugu soo dooran lahaayeen deegaanada iyo ka yimaadeen oo deegaanada sida buuhood oo kale werwood oo kale boocam oo kale meelo badan oo aan Somaliland iyo Puntland midna ka talin baa jirta oo dadka deegaanku ay degan yihiin ay ka taliyaan. marka anigu saasaan aaminsanahay fikradeedu waa sidaa. waayahay qodob ka mid ah inkastoo wax walba oo bini aadan ay ku heshiiyaan ayaan ahayn aayad quraan ah oo la bedeli karo. maxaan ku idhaahdaa waxaa ka mid ah dadka dhaqanka markaa cuqaashii isimadu qayb ku yihiin bulshada rayidka iyo inay ka qayb qaataan arrimaha soo xulista. adiga ahaan shaqsi ahaan maxaad is leedahay xil waad iska saari kartaa degaankaaga oo kale inaad saameyn ku yeelatid shaqsi baa tahay muwaadin baa tahay maadaama codkaagii qof iyo cod aadan suuroobeynin ama la diiday inaad qayb ka qaadatid xildhibaankaaga inuu noqdo mid ku matalaya adiga ama nimanka dooranaya ee 101 lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ka shaqeynaya marka horeba ama fahansan danta deegaanka. wallahi Soomaaliya waxa ku mahmahada Axmed waxaad jeceshahay dad weydo waxaad ka farsameydaa la sameeyaa Soomaaliya oo dhan baa jeclay hal iyo cod had iyo cod waa la waayay waxaan ka farsameynaa sameynayna marka shakhsiyan anigu haddaan iska soo qaado waxaan u qaban karo ama waxaan salahan waxaan sameyn karaa wacyigelin oo kale aan sameyn karaa inaan ku boorino dadka inay daacad ka noqdaan waxaan hadii daacad laga wada ahaado wax badan baa la qabsan karaa hadii yacni la iskaashado hadii la wacyigeliyo dadka hadii musuqmaasuqa waxyaalaha ugu badan ee hadda ay u sameynayaan waxaas waxyaalaha musuqmaasuq weeye musuqmaasuq hadii musuqmaasuq kale la suuliyo wax badan baa la qabsan karaa marka
arrimaha wacyigelinta in lala xiriiro nimanka isimada ah oo runtii anigu aan oran karo mushkiladda ama dhibaatada ka dhacday wadamada SSC qayb weyn bay ku leeyihiin laana hadday iyagu midaysnaan lahaayeen hadday codkooda midayn lahaayeen wax badan buu qabsoomi lahaa mid inuu garowo fadhiyo mid hargeysa fadhiyo mid meel kale fadhiyo waxay soo kordhinaysaa ma jirto waxaan rabaa kale in halkan iyana uga faa'iidaysto soo dhaweeyo shirkii ka dhacay Boocame oo ugaas ku casuumay simadii uu casuumay wali waa shirka oo loo fadhiyaa waxaan rajaynayaa wax badan wax wanaagsan inay ka soo baxaan inay kaga hadlaan arrimaha masiiriga ay hadda meesha yaala sida xildhibaanada oo kale inay iyagu u gacan banaanaadaan oo ay arrimaha maamulka Puntland oo kale aad gacan ugu jira Cabdilaahi Maxamed muxuu ahaa Saciid Deni oo kale marka waxaan rajayn lahaa وايه aad baad u mahadsantahay adiga madaxda salaamaya waaye aad baad u mahadsan tahay ninkaas dhalinyarada ah ee naga soo wacayay Australia waxa uu ahaa qofkii ugu horeeya insha Allah waad ugu soo celin kartaa hadii markaas qadka uu banaanaado waxaan isku dayeynaa insha Allah qof kalena inaan siino si uu qofka kale naftigiisa isagana fikirkiisa dhowda uu u dhiibto waxaan rabay inaan idin la wadaago qaar kamid ah xaqiiqdii adduunka hadaad maqashid policy-ga ama sharciga waa waxa ummadda kala hormariya sida aan shalay idin la wadaagay waxa ka dhacaya hadda Soomaaliya waa doorashooyinkaasina waxa ay ka talin doonaan aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya sida aad ogtihiin Soomaaliya muddo badan bay dagaal sokeeye ku jirtay wayna ka soo kabanaysaa caalamkuna waxa uu rabaa inuu qayb ka qaato dabcan sida iyagu u arkaan inay meeshaas noqoto dawlad jirta oo adag inay ka dhalato waddanka Soomaaliya sida la aligeed waxyaalo fara badan ba wanaagsan in ummadda ay ka taxadaraan mustaqbalka tusaalahan dawladda la dhisayo sida aad ogtihiin musuqa ama corruptionka waa waxyaalaha ragaadiyay dawladaha Afrikaanka Soomaaliyana ay koow ka tahay sida la aligeed haddaad doonaysid inaad mustaqbalka Soomaaliya wax ka bedeshido kale waa inaad kala dagaalantaa in uusan siyaasi ama siyaasiyiin musuqa lagu yaqaano oo kale ayaan xildhibaan ka noqon ama hogaanka for example dawladda oo kale ayaan noqon sidoo kalena xilliga dawladda la aasaasayo sababta loo sameeyo doorashooyinka iyo waxa weeye inay bulshadu ay ka qayb qaataan iyaga cidda ku matalaysa dawladda haddii aadan hadda adigu qayb ka qaadan cidda dawladda kugu matalaysa xildhibaan hadday noqoto madaxweynaha hadday noqoto fursadan waxa weeye ma helaysid mar dambe nasiib darrada ka taagan Soomaaliya waxa weeye codkii uu lahaa qofka ama ummadda ama deegaanka wuxuu noqday wax lacag lagu iibsado waana nasiib darro xildhibaanku waxa la doonayaa inuu ka shaqeeyo waxbarashada deegaanka uu ka soo jeedo ama gobolka uu ka soo jeedo caafimaadka gobolka uu ka soo jeedo horumarka bulshada deegaanka degan u doodid ahaan ka siyaasad ahaan in uu ka hadlo wixii ka qaldan deegaankiisa iyo sidaas oo kale inuu ka shaqeeyo arrimaha quseeya wadanka iyo dawladda oo idil laakiin haddii qofkii kugu matalayay oo ahaa qof qolo xisbiya ama shaqsi siyaasiya qof uu geeyey ama dhaqaale yar uu ka bixiyey qofkaasi way adag tahay inuu u qabto bulshadaas marka insha Allah arrimahaasaan ka hadlaynaa waxaan rabay mar dhaweed aan idin tusayay tusaale ahaan faa'iidooyinka ugu jirta magaalooyinka lagu qabto doorashooyinka oo dabcan ay ka mid tahay magaalada Muqdisho dabcan doorashada waa u muhiim wadan walba oo xor ah waxaa ku dhisma dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha tusaale ahaan magaalooyin badan oo aanan hadda lagu qaban doorashooyinka Soomaaliya magaalooyin badan oo hadda aan lagu qaban doorashooyinka Soomaaliya haddii hadda la asteeyo ama la bilaabo in lagu qabto waxay sahlaysaa ama u fahlaysaa bulshadaas in dhaqaalaheedu uu kordho hadda tusaale ahaan Hirshabeelle oo kale laba magaalo haddii loo magacaabo waxay keenaysaa halkii hal magaalo ay siyaasadda u noqon lahayd mid dhaqaalaha ka soo galo in gobolkaasi laba ay ka soo galaan mustaqbalkana waxay dhacaysaa in ay degmooyinkii ama tuulooyinkii ay ka faa'iidaan haddii ilaahay idmo taana waa kasii hadli doonaa faa'iidooyinka ugu jirta waxaan rabaa qofka kale na soo wacaya السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياه اريا كود كا 64 وحقيقة سوعيسا. حقيقة سوعيا نيوزيلاند. وياه نيوزيلاند نكي مركي دويدو 61 كان كو قلدي بارو مالينيا نيوزيلاند
waxaa waaye adduunka cirifkiisa kale anna maraykankan joogaa kusoo dhowow barnaamijka adiga aragtidaada soomaalidu xilli xun ayay kala orodaa oo xeeriya fadhaal kala dhacay ayay yidhaahdaan dadka soomaalida ah taasoo macnaheedu yahay haddii maanta xildhibaan la doorto xildhibaanka madaxweynuu dooranaya waxaan u malaynayaa way dhammaatay arrinta boos siyaasadeed inuu qofka uu ka hadlo marka waxaa u baahan tahay keliya ninkii siyaasadda kugu mateli lahaa kaaga hadli lahaa marka sidaa la-aaligeed barnaamijyadan waxaan u qabanayna bulshada rayidka aan ku derdergelino inay ka fiirsadaan cidda ku matalaysa dowladda kusoo dhowow barnaamijkan maxay kula tahay arrimaha doorashooyinka soomaaliya arrintan hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey ee xildhibaanada qaabka loo dooranayo iyo adigu naftigaaga see u aragtaa xildhibaan ku mateli karaya in lagu helo ama deegaankee laga soo doorto marka ugu horeysa aada baan idin wada salaamayaa adiga axmed laasi iyo dhammaan daawadayaasha barnaamijkaaga aada iyo aad baan nagu taxnay barnaamijyadaada wacyigelinta bulshada kheyradka aad ku dhiirigeliso aada iyo aad baan noogu mahadsan tahay kabacdi magacaygu waa ibraahim maxamed baashe oo jooga waddanka new zealand aragtideeda ku aadan xildhibaanada lagu mateli doona baarlamaanka soomaaliya anigu waxaan kasoo jeedaa gobolada sool sanaag iyo cayn waxa weeye xildhibaanada federaalka lagu matela ama qof kasta oo soomaaliya ku matela marka anigu ka hadlo deegaankayga waxaan anigu qabaa ilaa iyo laga soo bilaabo carta ilaa hadda inuusan xildhibaan lagu matela uusan kasoo bixin meesha ma garat maxaa sababay ilaa iyo carta ilaa iyo hadda in aadan helin xildhibaan qabiil ahaan waad ugu jirtay mar walba waad uga dhex muuqneed maxaa sababayay walaalow anigu waxaan qabaa waxaa sababeynaya horta waxaa sababeynaya dhibaatada ugu weyn keenaya waxa weeye sadbursigan soomaaliya ka jira ee maamulka qabiilada ku dhisan oo aan odhan karo waa dhibaato weyn oo caqabadaho soomaaliya ku habsatay waa garta taasaa waxay keenaysaa qof iyaga la aragtiya mooyaane qof kale inuusan meesha iman taa markaa waxay bedelkeeda keenaysaa qofkii shilimaad haysta iyagana la aragtiya inay meesha keensadaan somaliland ha noqoto puntland ha noqoto maamul kasta xitaa oo jirada marka saa darteed maamulada xildhibaanada aniga haddan igu matela baarlamaanka waan isku deegaanka nahay odayaashii dhaqanka ee saxda ahaana ma soo marin dadkii cuqaashii deegaanka iyo dadkii waxgaradka ahaana ma soo marin laakiin waxay ku yimaadeen musuq maasuq iyo isdabamarin iyo in keensado taa bedelkeeda waxay keentay in aynan matelin deegaankii dantiisana ka hadlin waayo dee deegaanka lagama soo dooran nin baa soo dirsaday waxa la yidhi asxaabbaar bay meesha ku yimaadeen anigu waxaan qabaa deegaanka federaalka fadhiya dee horta marka ugu horeysa deegaankiisii lagama soo dooran oo rabitaan dadweyne kuba iman laakiin wuxuu ku yimi rabitaanka qof kale rabitaankii qofkii kale ee keensaday meesha uu ka shaqeynaya laakiin deegaanku ka yimi wuxuu ogyahay inaan laga soo dooranayn inaan maaragtay cidi uga ooleynayn marka xilku ka dhamaadana kii uu tegaya wuxuu leeyahay igu celi meeshii waaya adiga hadalka ku wata waxaan maqlay hadda durbaba xildhibaano laga yaabee kuwa ka cabanaysidba inay ku jiraan puntland xildhibaanadii ku jiray aqalka baarlamaanka puntland ee ka tirsanaa maamul goboleedka in ay u kambeyn garaynayaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen xildhibaanada federaalka ee dabcan deegaanada ku matela maxay kula tahay arrintaas waxaan arkaa waa nasiib darrooyinkii awalba jiray weeye ee meesha ka jiray ee dadka deegaankaas loo geysanaya weeye soomaaliyana axmedow haddaan yar dib ugu noqdo hadda heshiisyada dhacay iyo wixii la wadwaday anigu waxaan u arkaa inay tahay shimbirayow heesa xildhibaanada maanta ololeynaya iyo kuwa puntland u ololeynaya iyo kuwa puntland wadatana waxaan arkaa inay wixii hore u booskoodi marayaan cidna ayna wax u qabanay dadka kale iska daaye naftooda ayna wax u qabanay halkaasay u joogaan xilliga malakumoodka markuu yimaadana ku dhimanayaan iyagoo magac iyo sumcadoodna aan deegaankooda u keenin naftoodana u keenin laakiin noqonaya de qof oo maxaa la dhahaa shaqaalaha ahoo dad u shaqeynaya oo keensaday meesha marka racaqiiq la eegana deegaamadaas keliya aan ka hadlano ma ahe deegaamo badan baa dhibaatan qaba oo dadka hadda puntland degan oo kale oo deegaamada gardafuul iyo meel walba iyo beldogob waa laga cabanayaa wax kastana waxa leeyahay dad baa isku madax duubaya ninka hadda meesha fadhiya uubaa u taliya dadka deegaamada degan anigu waxaa ugu baaqayaa soomaaliya maanta madaxweyne farmaajo oo indhahaa isbedel buu keenaya xaaladii meeshuu geeyey waad aragtaan anigu waxaan arkayaa soomaaliya halkay maanta maraso in ay tahay meel aad dibna ay ugu noqotay dhibaatadii ay laga soo baxay iftiinkii ilaa la arkayana uu dib u noqday baan anigu qabaa waa gartay marka anigu kale waxaan aan aragtideeda kusoo dhaweyn lahaa dadka isimadaas mada gobolada kasoo jeeda gobol kasta oo soomaaliyeed in loo daayo xildhibaanadooda
kay doonaan ha keenaan oo madax baneeyo marka qofka deegaanka matalaa oo dadkii cuqaashi iyo waxgaradku ay soo saaraan marka uu ku matalo baarlamaanka laakiin inuu madaxweyne maamul goboleed ka qorto warqad yar intuu hoosta ka qorto iyada hebelow gal hebelowda had anigu waxaan qaba waxaas waxay keeni mayso 20 sano ugu dambeeyena waxaasa deegaamada ragaadiyey oo ah nin meel boorso wato meel laga soo kaxeeyo xil loo dhiibay oo deegaankiisii war waxay hadda kuwa 8 baa deegaamada kaga jira hal nin adayna gabadh baan daawanayay tirtay boocade aad iyo aad gabadhaana ugu mahadinayaa laakiin mid kaliya oo dhaafay muqdisho ma jiro waxaad moodaa in laga soo doorto muqdisho deegaankooda kalena uu garowe marka waxaan odhan karaa kuwaas dadka SSC ka tashadaan waaya haddii adigu aad fariin u diri lahayd 101 qof ee la sheegay inay dooran doonaan xildhibaanada maxaad odhan lahayd kuwa degaankaaga ah horta walaal anigu waxaan odhan lahaa 101 horta marka kun iyo xoogaa baa leeyahay 101 waxa looga soo cararaya waxa weeye kun qof oo xildhibaan kasta marka lagu dhufto ee faraha ka badanayaan taa waxaan qabaa waxay uga cararayaan maamul goboleedadu lacagta faraha badan ee awoodi karin ay ku bixinayaan kun qof ee xildhibaan kasta marka kun qof ay doonayaan kun qof lacag baa la siinaya gaar waxaan u fahmayaa 100 marka laga dhigay waa dad lagu filaan karo lacagtooda la bixin karo marka anigu waxaan qabaa rajada ka qabaa aad iyo aad bay hooseysaa inay xildhibaano xalaal ka soo baxaan waxaan oran lahaa kolley de kuwii wadani doona ay mareen kolley kuwii uu wixii dhintay mooy wixii kale waa nool yihiin wax soo doortay boqolkaa soo bixi doona haddaad dariiqa hore raacdaana dee kuwii baad la mid tihiin dad ka baydhaa maanta diidaar xaaraanta iyo waxa la xaqdaradaasna dee taariikhda ay xusi doonta waa leeyahay waayahay aad baad u mahadsan tahay adaa badan walaa aad baad u mahadsan tahay waayahay ninka dhalinyarada ah isaguna wuxuu naga soo wacayay dabcan New Zealand oo aad u fog Soomaali meel walba waa tagtay New Zealand waa wadanka adduunka ugu geesiyaan u malaynaya saacado 12 saac ayaan farq noo dhaxayaan u malaynaya ku soo dhawaada barnaamijkan waxaanu ka hadlaynaa arrimaha doorashooyinka sidaan idin sheegayay xaqiiqdii tusaale ahaan wadanka aan ku noolaa hadda Mareykanka gaar ahaan magaalada tusaale ahaan inkastoo iska magaalo yar tahay laakiin magaalo weyn waxba ugama baahna sababtoo tahay waxay leedahay wax walba oo ay leedahay magaalo weyn ama magaalada caasimada ah in fact waxaa laga yaabaa xaafadaha Washington DC ee ah caasimada wadanka Mareykanka ee siyaasiga marka laga reebo gobolada oo iyagu mid walba caasimad gaar ah oo xukuumaddu ay fadhida ay tahay caasimadaha marka laga hadlayo dawladdu ma aha inay noqoto magaalada ganacsiga yani waxyaalaha Soomaaliya hadda qaladaadka ka taagan yahay ay ka mid tahay adduunku magaalada ganacsiga iyo magaalada dawladdu ay degan tahay way kala duwan tahay sababtoo tahay isma qaadi karto dawladdu waxay u baahan tahay si safe ah ma badqabta in ay uga urursan tahay dhulka ay degan yihiin rayidka haddii tusaale ahaan aan u qaadana waxaa kow ka ah magaalooyinka mustaqbalka u baahan inay ummadda Soomaaliyeed ka fikirto inkastoo aan u malaynay in ummadda Soomaaliyeed ku fikiraba inaan ahayn magaalada Muqdisho sababtoo tahay magaalada Muqdisho waxaa ku yaala airportkii ugu weynaa wadanka dekadii ugu weyneed caasimadii wadanka dawladii oo degan taasoo keenaysa in ayan weligeed dawladdu ayan ku gooleysan karayn in ay nabad geliyo ay ka dhacdo magaaladaas marka ay noqoto cadawga dawladda ee mar walba soo abaaraya iyo haddana ay sii ahaato magaalada caasimadda taasoo u wanaagsan xataa magaalada dibaddeeda qeybaha xubnaha dawladda sida baarlamaanka iyo wasaaradaha in magaalada dibaddeeda laga dhiso oo laga dhex ururiyo shacabka sababtoo tahay dawladdii iyo shacabkii baa isdhex degan taasna waxay keenaysaa in aanan dawladdii ayan isdifaaci karaynin cadawgeeda marka adduunku ma jirto marka meel caasimadda dawladda waxaan ka hadlaynaa halkuu madaxweynaha fadhiyo waxaan ka hadlaynaa halkuu gudoomiyaha gobolka degan yahay waxaan ka hadlaynaa militariga meelaha u degan yihiin sida Soomaaliya ama Xamar isu dhex degan yihiin ma jirto taasoo ku wanaagsan gobol haday noqoto in la kala saaro magaalada ganacsiga iyo magaalada waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka doorashooyinka u leeyihiin Cabdi waa kugu furayaa qadka qofka soo wacaya hadii ilaahay laakiin hadii magaaladu ay xukuumaddu degan tahay waxa fiican magaalada kalena inay u ahaato magaalada ganacsiga magaalo ay u ahaato magaalada dalxiiska sida la aligeed bulsho hadaa aragtid israbta waa bulsho si wanaagsan wax loogu qaybiyay laakiin dad iscolaadsada hadaa aragtid waa dad si xun wax loogu qaybiyay tusaale ahaan waxa Soomaaliya ka jira magaalooyinna waxa ka dhisma guryo intaas soo dabaqa afgooy iyo xamar hadaa isu fiirisid noloshu aad bay u kala duwan tahay
waadna ogtihiin dhibaatada ugu badan xamar marar walba waxaa la yidhahdaa qaraxa wuxuu ka yimid dhinaca afgooye haddayan xamar ka shaqaynin horumarka iyo wanaagga afgooye afgooyena ma ka shaqaynayso horumarka iyo wanaagga afgooye marka taasaanu ka hadlaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaa wanaagsan ka xumaa bahalkan dhigto mar walba iga duulaya in laga shaqeeyo haddii ilaha idmo waayahay waxaan siinayaa qof ku jira qadka kusoo dhawow cabdi barnaamijka xaggee naga soo wacaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نورت أحمد هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكم مقلنا ولا الكسودو قدك والله أحمد والله استقبلك بقول لما نروح السلام يا أديك قواب سعاد بعد السلام يا سلك بعدي أنا وحنك سؤال يا ودك الدرمارك وحندوني يا إنا كدي بتفكر كيجا وشركنا عاو والدهرية موضوعه يا اللي بعنا ذا حاجة لقى صوت بوانا يا deegaanadaas SSC gaar ahaan runtii horta marka hore waxaan doonayaa in aad u mahadiyo aan u soo dhaweeyo shirka ka soconaya Boocame oo gogashiisa uu dhigay Ugaas Maxamuud aad buu soo dhaweynaya boqol waxaan ka codsanayaa ismada halkaas uu tagay oo aan filayo majority ahaan ismada heerka in halka ku dhayihiin in shirkaas uu ku soo dhamaado waxa danta iyo dadka danta ku jirto laguna qaro horumar iyo wanaag haddiinta aan ka gudbo oo aan gudub qodobka xildhibaanada iyo marka soo socda la rabo in la doorto ismada waxaan ka codsanayaa maanta xildhibaan deegaankaas uu leeyahay ee laga doorto ama Garawe ama Boosaaso ama Hargeysa ama Burco xildhibaankaasu mana matalayo umana cuntamayo namana matalo dadka deegaanka u dhashada nahay ismadu xildhibaanka iyaga magacaaba isagu tashaambadoodu buu ku tagaa mutiba bishu doonayuu maanta oo maanta ka bangarayaba marka isinka doonaya maanta ama ha noqday kuwa hore aan hore u eednay oo anigu aan filayo 8 xubnood ku jira baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada u dhashay inay ay wada ahaayeen waxaan ka ahay gabadhaas ekraan afiliyo magaceedu oo dhawaan aan ku arkay shirka Boocame ku socday iminka iyadoo de ruuxaantii sheegtay waxyaalo badan oo la taaban karayo in deegaanka ay ku soo kordhisay aadna gabadha waan ugu mahadinayaa waxaa leeyahay waa la kuliyay jiro joog xildhibaanadan iminka soo socda waa inay annaga deegaanka iyagu ay aanu ka xulanaa وين أنا وأنا مقعونا وين اسمه أنو فلان وين أنا لقى حلين أو أنا لقى دوران دقان كله أنا هاي دقان كودي وهاي دقان كله حدي لقى مقعو إنما خاصو أنا دم مثله وحنا أنا قلنا ما هيو وفقص أنا يا وياهاي مش لقى دورت يقف كنسلي أيو بشغل متقلق كيس يبدي سبعة marka waxa maanta aan doonaya in ismada aan ku cusubaba danta dadka iyo deegaanku maanta waxa ku jirta gacantiina iyo qalinkiina wad idinku deegaankiina iyo dadkiinaba u naxaya xildhibaanadina waa in idinku aad deegaankiina aaladihiin winaad ka doorataan uu soo noqon xildhibaan laga doortay Garawe ama Boosaaso ama Burco ama Hargeysa waayahay waayahay arrinta xagga kolley isimadu waad ogtahay xaaladaha waddanka ka jira iyo iyagu naftigooda dhibaatadii ay soo mareen waxaana waa wax siyaasada dadka ay lala hadlayaana waa dad siyaasadda macnihii awoodeeda haysta laakiin dadka kaleya oo siyaasadda hadda macnihii marka aanu xaqiiqdii fiirino check and balance ku sameeya waa isimada adigu marka ma aaminsan tahay siyaasiyiinta isimada aan raahdo gobolada ka soo jeedo inay qaadici karaan in aanan xildhibaankoodu uusan noqon wax siyaasi gaara uu wato oo uu ku danaysanayo oo iyagu ay noqoto kow wax oo ay u madax bannaan yihiin dadka iyo deegaanaadkooda iyo arrinta qodobka kale oo ah in ay iyagu xaq u leeyihiin in ay yiraahdaan xildhibaanada gobolkan ka imanaya
ha lagu soo doorto degaankaas saan sheegayna puntland naftigeeda sida gaalkacyo oo kale xaqiiqdii hadday dhegaysanayaan qaar ka mid a reer gaalkacyo agaada marban ku noolaa xarurnimadeydii doqoniimay ku tahay in lagu magacaabo soomaaliya waa ognahay one man one vote bay ku socotaa degmooyin bay ku socotaa xaqiiqdii waxaa wanaagsan in magaalo walba xildhibaanadooda gooni loo soo magacaabo hadday noqoto kuwa bari qardho maxaan ku idhaahdaa iyo gaalkacyaba sidoo kalena buuhoodle ama boocame ama taleex ama degaanaadkii lagu soo magacaabi karo marka adigu waxaad leedahay ma u aragtaa inay isimadu leeyihiin labadaa qodob inay yidhaahdaan annagaa cidda aanu doono keensanayna iyo inay yidhaahdaan degaanaadka annaga aanu degaan noo ah ayaa laga keenaya xildhibaanada axmed haa waxa weeye inaad maanta soomaaliya xildhibaan kastaba iyo wasiir kastaba marka hore waxaa kusii fadhisiya waxa weye waa nin kasta waa mutiisinkaba ama garaad ama suldaan ama mutiga ama malaaqbe isimadu inaad bawrka koowaad ee dagaalka u leeyahay waa iyaga maanta ilaahay ka sokow ummadaasu wixii maanta dhibaato soo gaadha iyo wixii hore kadaanba iyaga ka mas-uula waxa weeyaan isin kastaba reer buu u yahay isuu yahay oo u yahay madaxweyne u yahay oo dhaqankii iyo dhaqanka u matalaa iyo arrimaha dagaalkaba marka waxa weeye isimadu inaad ismadu bawr waxay ku leeyihiin inaad dhahaan annaga dadka annaga noo noqonaya xildhibaanada annagaa kisrana annagaa soo qoraynaba in iyagu ay arrinkaa ka tagaan wada cad waa dhahan annaga xildhibaanka iyaga annaga waa kan annaga kana matala anu kana xulanay waayo su-aalaan ku weydiiyo maxaad waa ka hadashay baan u malaynayaa waa maxay cabsida ugu weyn oo laga qabo hadday siyaasiyiintu ay iyagu xushaan xildhibaanada waxa weeye qodob kalena wuu ku jiraa oo aan maqlayay oo laleeyahay maamul goboleedka yaa baarlamaankiisa ayaa wuxuu soo magacaabanayaa ama soo dooranayaa inta ka qayb gelaysa aqalka sare iyaduna waa qodob ku jira taasoo macnaheedu uu yahay tusaale ahaan xildhibaanada waadna ogeyd in lalahaa xildhibaanaha aqalka sare kaga maqan gobolada soolsanaag iyo cayn oo ayan lahaayeen in la leeyahay waxaa soo magacaabaya baarlamaanka taasoo macnaheedu yahay in baarlamaanka puntland bade hadda kambeynkiisii uu ka socdo sidii ay dad ugu dirsan lahaayeen aqalka sare uga qayb galaya xildhibaanadana kuwa aqalka sare horta axmedo waxa weeye hortan nimankan haddeer laleeyahay waxaa soo magacaabanaya qolyaha kan puntland baa doonaya inay maarata ay soo celiyaan waxa weeyaan waxna anigu dadka dagaalka anigu aan u sheegayaa annaga annaga maanta meelka laga soo magacaabay annaga marnaba anigu waxa weye de wax annaga noo yahay mutaba jirin ma garataba laakiinse anigu waa inaan waxaan doonayaa axmedow oo weliba aan jeclahay dadka degaanku 100% inay la qaataan in waxa weeyaan war nin kastaba wuxuu ku leeyahay sharaf iyo magac iyo sumcad degaankiisa maxdu qabatay xagga laga soo doortay xagee matashaa yaad u maqan tahay waa la socotay axmed oo ninka la yiraahdo fiqi oo hadda wasiirka amniga ee galmudugga waa ninkii weeye ugu hadalka cadaa oo ay waxba kala qawaayeen khayra iyo farmaajo ninkaasu degaankiisa ugu dagaalamay waa aragtay maanta heerka uu gaarsiiyay galmudug inuu maanta uu ka noqotay iyadoo laba gobol weliba aan dhamay inay maanta ay tahay maamul goboleeda ee Soomaaliya maamulka ugu maarta cadba oo shirka inta saddex jira marta galiyada waa sax marka taana maxaa keenay adar waxa weeye hadii degaankaada adigu aad u hadlin aad oranayn anaa degaankan anaa ka mas'uula degaanka xaqgiisa aaway waxa weeye cidna axmedo waxa weeye daadabada qoramisa waxaas degaanka hala geeyo waxa weeye adaa u fadhi kursiga adaa u doodi karaya adaa u maqan adaa guracaya miiska madax oranayaba annaga waxa iyagi halal siiba waa sax ma garan laakiinse xildhibaan laga magacaabay degaan u dhalan waxa weeye wax allaale dee wuxuu adiga kugu fadhiyo wuxuu adiga ku matalayaba dibaa jirinba marka waxaa loo baahan yahay isimadu intay goor tahay oo hawshu imikadan waxba kama hadhin inta waqtigaa dhiman oo yar gaarsan waa inay iyagu muqcad ka wada ka gaadha arrinka dhahanba farmaajo iyo maamulaba
annagu xildhibaanayada annagaa soo qorana annagaa keenana annaga nama matalayo xildhibaan laga marta qoray degaan kaleba waaya xilligan waxaa lagu jira xilli kala guura sidaad og tahay somalilan dhibaatooyin fara badan ayaa waxay ka haystaan siyaasadda xagga soomaaliya marar badanna waxay isku daydaa si ay saameyn ugu samayso dowladda federaalka naftigeeda in ay xildhibaanadeeda ay ku yeelato si ay maadaama soomaaliya ay ku xaniban tahay aqoonsigeeda inay ku dhex yeeshaan dad ku matali karaya dowladda soomaaliya waxaan rabaa inaan su-aal aan ku weydiiyo waadna og tahay dhinaca kalena cambaign bay somalilan kaga jirtaa dhinaca kale in ay soomaaliya ay ka go'do inteeda kale waxaan u malaynayaa doorashadana waxay aad iskugu dayi doontaa haddii ay xildhibaanada dhinacooda yihiin ama beesha dhexe inay hubsato inay gacanta ku dhigto iyo sidaasoo kale inay isku daydo inay heli karaan xildhibaano kale oo reer waqooyi ah oo iyaga danahooda ka taliya khatar badanna way leedahay gaar ahaan dadka goboladan aad ka hadlaysid wax walaaca ma kuu muuqdaa oo ku saabsan haddii aan la helin dad xildhibaano ah oo degaankan matala in ka siyaasad ahaan ay wiiqmi karaan goboladaas already dhibaatada waa ognahay laakiin ka siyaasad ahaan ay wiiqmi karaan kuwa puntlandna ay sababtay inayan ka hadal iyagoo xataa yidhahda puntland baanu ka tirsannahay waana kasoo jeednaa goboladii inayan ka hadlin arrintii marka arrintaa xagga somalilan iyo saameynta ay ku samayn doonto baarlamaankan soo socda wax walaaca ma kugu jiraa inaadaro tasmay waxa weeye taasi wax walaaca ku jirto somalilan ismadan somalilan nimankan maganasaado gujirka iyo golaha saraba nin kastaba degaankiisii buu matalaa wayna ka muuqdaan doodana way ka muuqdaan wayna ka hadlaan wax badan baa filiya badan baa ka dhigaystay media ama ka aragtay marka ka hadlaya ninkliya maariya iyo gabadha foosiya xajaadan iyo ninkii iyo wasiirka hore amniga loo jiray Xuseen Carabi marka hadlayaan iyagu cad yahay warkood war annagu ah xildhibaan ka dhigsan dowladda Soomaaliya kana soo jeedna Somaliland halkan aan u fadhinaa doonayna Somaliland xaqi ay kula hayeen adduunka wixii dhaqaalaha wixii suula ma garatay ba marka marnaba Somaliland kuma khasaarayaan waligood hadheena anagu Somaliland wax ka go'an laakiin mar kastaba dad firfircoon oo iyaga u maqan oo u dagaalamaya oo deegaankii matalaya ha noqoto mashaariic ha noqoto hay'ado waddanka ay geeyaan ha noqoto caafimaad ha noqoto samafal ha noqoto deeqaha bixiya caalamku dad baa meesha u fadhiya iyaga u matala deegaanka matala uga wakiilaba marka Somaliland inaan waxa weeye wax iyagu haba yaraateeba iyagu wuxuu uga mutiyo waa banaanka waa sax wey aad baad u mahadsan tahay haddaad fariin oran lahayd dabcan isimada waa la hadashay maxaad ka oran lahayd marka ay noqoto soo xulista xubnaha u codaynaya iyo bulshada degaanka maxaad oran lahayd fariintaada inaadaro waxaan ku orayaa horta bulshada dhammaan waxaan oranayaa bulshooy wax badan baa ku jirteen dibiye halaag wax badan baa barateen nin aan idin betelin waxmaan idin qaban oo magac u yaala waxa maanta laga hadlaya ama ninka doonaya mooti inuu ku tartamo waa ayahiina iyo weeye mustaqbalkiina qofka ay waxa qofka ay dooranaya waa inuu hado qof degaanka iyagu motiga ka soo xushaan uusan qof degaanka la motiga lagu adeyn oo aqoon iyagu tahay ay lahayn waa sax aad baad u mahadsan tahay waa cabdi insha allah haddii ilahaydna waana sii wadi doonaa inaanu ka hadalno arrimahan haddii ilaahay idmo gaar ahaan marka telefishinka uu hawada gala haddii ilahaydna darwish t v oo aan rajaynayo bishan dhammaadkeeda inay noqon doonto aad baad u mahadsan tahay waayahay weli barnaamijkaanu ku jirnaa barnaamijkan oo aan ugu magac daray xaggee lagu soo dooranayaa xildhibaankaaga sidaan barnaamijkan aniguna aan dareensanahay dad badanna ay dareensan yihiin walaaca ugu weyn oo qof walba uu ka qabo codka xildhibaankiisa waxa weeye in xildhibaankiisu uu noqdo wax ama agab aalad qof kale uu wato ama jeebka ugu jirto xaqiiqdiina
dowladnimada soomaaliya marka aanu fiirino iyo caalamka sida uu shaqeeyo laba waxoo aada u kala duwan weeye insha allah waxaan rajeynayaa soomaaliya inay gaarto heer bal in la yidhaahdo qof iyo cod inuu noqdo walow soomaaliya haddii xisbiyo badan noqoto ama cod iyo qof ay noqotoba inkastoo uusan musuq maasuq uusan ka dhammaanayn waana nasiib daro ummad dhan dantooda hadday tahay waxbarasho tusaale ahaan rag badan oo hadda soo wacay barnaamijkan waxa ay ka hadlayaan dhammaan xildhibaano dhan oo degaan kasoo jeeda taasoo weliba soomaaliya oo dhan hadda ku badan in uusan saameyn ama wax xiriira uusan la lahayn xaqiiqdiina waxa ay ahayd inuu xildhibaanku muddana joogo deegaanka laga soo doorto si uu ugu warqabo baahida iyo dhibaatooyinka iyo horumarka ka jira deegaankiisa waxay ahayd muddana inuu joogo meesha caasimadda u ah hadduu yahay mid maamul goboleed iyo mid ka tirsan dowladda dhexe ama dowladda federaalka ayna wanaagsan tahay in uu xildhibaan walba uu xafiis uu ku yeesho deegaanka laga soo doortay uuna qeyb ka ahaado isku xirka bulshada uu xildhibaanka u yahay iyo maamulka uu ku matalo ama dowladda uu ku matalo haddii ay tahay dowladda dhexe sida aada ogtihiin soomaaliya waxaa la yidhi waxaa laga cafinayaa ama laga cafiyey deyntii oo aada u badnayd ilaa iyo intay xornimada qaadatayna deymo ku ururayay ee ka mid ahaa taa waxay saamixi doontaa soomaaliya in loo ogolaado dhaqaale cusub oo iyaduna qaarkood noqonaya deyn taasoo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka horeeyaan dekadaha ay ku jiraan wadooyinka ay ku jiraan horumarka sida iskuulaadka dhismaha ciidamada sida militariga iyo booliiska ka waran waxaas oo horumar ah haddii aysan jirin cid kugu matasha soomaaliya hadda waxaanu maqalnaa ciidamo militariya ayaa la qorayaa waxaa jira degaano badan oo soomaaliya ka tirsan oo aanan wax ciidan ah oo militari ah tusaale ahaan laga qorin see loo oran karaa marka ciidankaas qaran weeye ama waa loo wada simanyaha soomaaliya siday u kala socoto waxa weeye qolo waxay dhisanaysaa ciidan military oo gobol qolana waxay dhisaysaa ciidan federaal ah halkii la rabay wadanku inuu yeesho one unit ciidan ah oo degaan walba ka yimaada oo dowlad hoostaga dowladdu naftigeedana ay noqoto dhexe ama federaalka mid degan wadanka oo idil hadday tahay sidii tii hore ciidan military meel walba u degan yahay xero walba oo wax lagu tababari karo ay ku yaalaan dhammaan gobolada soomaaliya booliiska soomaaliya la awoodo in lagu tababaro gobollo kala duwan ciidanka militarigana la awoodo inkastoo haddii ay qaab federaala noqoto waxaan u malaynayaa ciidamada gobolka ama u shaqeynaya gobolka ayaa tababaranaya kuwa booliiska ah halka kuwa militariga ee la rabo wadanka inay ilaaliyaana ay tababarayaan dowladda dhexe maadaama ay ciidan military ay noqonayaan oo doorka iyada ay leedahay marka taas laaligeed maadaama soomaaliya ay ku socoto wadadaas waxaa laga maarmaana xildhibaankan aad arkaysid wuxuu ka qeybgelayaa dowlad dhismaheed madaxweyne ra-iisul wasaare waxa uu noqon doonaa laga yaabe xubin ka tirsan golaha wasiirada asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal waxaan ku jirnaa barnaamij live ah waa arkaa numberkaaga waa Minnesota adiga soo wacaysaa ma barnaamijka doonaysay inaad ka hadashid mise sidaad kala noo socday ما برنامجka rabayna ka hadlo waaye ku soo dhawo barnaamijka magacaaga barnaamijka ciwaankiisa waxaan uga dhignay xagee ku lagu soo dooranaya xildhibaankaaga taasoo aan rabay inaan dadka rayidka ah aan ku baraarujiyo inay la socdaan doorashooyinkan soo socda gaar ahaan ay saameyn ku yeeshaan xildhibaanka ku matalaya aragtidaada kusoo dhowow salaamaya walaalo horta aniga aragtidayda waxay ila tahay goboladana waa kasoo jeedaa magacaygana waxaa la dhahaa yaasmiin marka aniga aragtidayda waxay ila tahay horta waxaa la dhahay ninaan hadlin hooyadiis baa waqarisay ilmaha midka iska aamusan xataa hooyadii ma xasuustamo waa gartay ilmaha kale oo qaylinaya oo maaragtay marka aniga waxay ila tahay fikradayda dadka u dhashay gobolada sanaag maxaan ku dhahaa sool tog dheer haafkeeda ama cayn qof walba sida u yaqaano buuhoodle iyo weliba qayb bariga ka tirsan dadkaas inay kacaana fiican oo maaragtay ay shacabka kuwa dibadda jooga kuwa dalka jooga weliba dadka dalka joogaan dhihi lahaa ha kiciya shucuurtooda ha muujiyeen
because haddaadan cidina ku adigii haddaadan hadlayn oo iska aamusan tahay aniga uma jeedo inay cidina wax siinayso soo marka hadda kolla doorashada maalintii dhaweyso sidii lagu heshiiyey haddii dee wax iska bedelin oo hadda baarlamaanka la marinaya heshiiskii aynan baarlamaanku wax ka bedelin dee siday wax ku socdaan Puntland ba waxay noqonaysaa qof inay ku soo xusho oo iyada danteeda matala laguma soo xulaayo qof oo ama laaqano dantiisa matala ama maxaan ku dhahaa buuhood dantiisa matala ama baran dantiisa matala ama maxaan ku dhahaa dhahar dantiisa matala ama naymid ani magaalo ee meeshaas ku taal qof oo dantiisa matala laguma soo xulaayo waxa lagu soo xulaya qof danaha garow matala ya waa gartay waxay la aniga dadkan meesha deega inay kacaan inay maaragtay intooda maaragtay aqliga u saaxiibka ah iyo waxgaradkooda iyo aqoonyahankooda iyo waliba shacabku inay aad u kacaan oo shucuurta ay ka dagaalamaan waayo hadda wiil hadaay iga horeeyay wuxuu dhahay hadda fiqi oo kale uu soo qaatay tusaale wuxuu dhahay fiqi siduu mucaarad waxa u halgamayay wuxuu ka dhigay galmudug meel horumar buu gaarsiiyey soomaaha annaga waxay dadkeena u hadlila yihiin inagu ma soo doorano taas way u hadlila yihiin qofka marka adiga soo dooratay uu ku hadli karaa soomaaha maya dadka qaarkood Yasmin soo dhawow dadka qaarkood laakiin waxay leeyihiin xaqiiqdii horta siyaasadda waxay u baahan tahay inaad fahansan tahay qofkan adigoo aadan caayin ama aflagaadeyn asaga ama ciidii ka soo jeedo waa u sheegan kartaa waxa ama si wuxuu jiraan fiqi dabcan toos buu wuxuu uga soo jeeday siyaasadda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba dadka qaarkood waxay u arkaan haddii xildhibaanada ka soo jeeda goboladaasi toos uga hadli lahaayeen dowladda ama madaxweynaha inay xoogaa loo arko mucaarad inay yihiin marka ma kula tahay xildhibaanadu aqoon xumo shaqadooda ah ayaa ka gaabisay in ay runta u sheegaan madaxweynaha farmaajo in xilkii iyo mas-uuliyaddii ka saareed waddanka oo dhan uu gabay oo maxaa keenaya arrintaas ma kula tahay walaal anigu horta farmaajo ma eedeynaayo iyo inuu gabay iyo inuu wax qabtay baan aaminsanahay laakiin anigu waxaan eedeynayaa dadka gobolada ka soo jeeda waayahay laakiin de farmaajo isagaa madaxweynaha waddanka ah sooma madaxweynaha waddanka wuu yahay asii shalay siduu sheegay asaga waa de hadday maamul goboladii ay isku raaceen sidaas de isaga kole hadda baarlamaanka la geynaya qaraarkii kasoo baxay saan kuu sheegaba wixii kasoo baxana waa arkina laakiin haddaadan adiga hadlin oo gobolkaaga dadku matalaayo iyo dad qaylina Soomaaliya waa taqaanaa haddayna cid ku qaylan anu wataa cidna waxba kama sheegin yacni waxaan ka wadaa fiqi iyo danahooda u dagaalamayeen oo ay mucaarad u ahaayeen maxaa inaga dhibaatadana haysato oo dadka anaga na matala dawladda nagu matalaya ay u hadlila yihiin aniga waxay la tahay dhibaatada dadka anaga ma soo xulano marka dad waxa loo soo xulaa aanan ku habboonayn meeshaas dad baa noo soo xula dadka noo soo xulana garwaana nala kooga soo xulaa waxaana naloo soo xulaa dad aanan ku habboonayn meesha marka anigu taas weeye taan ka dagaalamayo oo aan leeyahay waa inay dadka hadda kacaan oo dhahaan anaga forali garoowe nama matasho garoowe waa meel kamid a maaragtay gobolada la siman marka waa inay iyagu dadkan kacaan oo hadlaan oo wax sameysaan laakiin farmaajo uu dhaliil wuu yeelan karaa laakiin de haddii adigii lahaa meeshaba oo deganaa oo degaankaagi dhan aada wax kuu hadla iyo wax kuu gorgorsamaayo aynan jirin de marka dad kalaa kuu goynaayo talada Soomaaliya waayahay xilliga la yiri doorashooyinku way bilaamayaan haddii ilaahay idmo ilaahayna gaarsiiyo waa November 1 waqti badanna kama dhina laakiin dadka hadday wax isku xirxiri karaan waqti way heli karaan ma kula tahay deegaanka tusaale ahaan adiga aad ka soo jeedid marka aadan gobol ahaan baadan u fikirin hoos aad u fikirtid haddii uu jiro xildhibaan kugu matalo in beeluhu ay kasii tashan karaan dadka u matali kara bal in la ogaado inta qof oo u sharaxan xildhibaankaas deegaankaas inay beeluhu naftigooda iska ka shiraan ama anigu fikir waxaanba qabaaba 101 maadaama ay dooranayaan xildhibaanka u codaynaya madaxweynaha in 101 naftigooda si cad ay u doortaan oo doorasho dadka deegaanka hoose ah oo tartamaya in iyagu naftigooda cod ay ku doortaan sidoo kalena ay ogaadaan 101gaasi dadkani waxay yihiin iyo waxay u taaganayaan
iyo waxay u qabanayaan xaqiiqdii bulshadana waxa weeye dee maraykan baad ku nooshahay wacyigelin la sameeyo la yidhahdo war dadkan lacag ha ka qaadanina waxaad kala hadashaan waxay idinka qabanayaan waxbarashada waxay idinka qabanayaan caafimaadka waxay idinka qabanayaan beeraha waxay idinka qabanayaan dhulkiina haddii uu ku jiro maxaan ku idhahdaa dhibaato ka jirto ma garanaysa marka soo uma furna fursad beeluhu inay ka shaqeeyaan inay iyagu wax wanaagsan iska soo xulaan way ka furan tahay walaala laakiin aniga hadda sheekada saan u maqlay inaanan si fiican u akhrina waa laga yaabaa in la dhahay magaalo madaxa gobol kasta amin waxa maamul goboleed kastaba magaalo madaxiisa lagu soo dooranaya waayo laba magaalo la yiri waayo laba magaalo la dhahay soomaaha laakiin ma aha aayad quraana de aniga waxay la tahay laba magaalo hadday noqoto dee maxay noqon kartaa Garowe iyo meel kale waayo laakiin aayad quraana ma noqon kartaan ku iri maxaa ka dhigay mar walba inay Garowe noqoto because waxa ka dhigay dee maantaba waxa dani soo kuma gorgortamo wixii ugu weynaa uu ku gorgortamayo shirka maxay ahayd waxay ahayd Sool iyo Sanaag iyo Cayn inuu soo xulo xildhibaanadooda sababta uu gorgortamayo maxay tahay adiga markaad weydiisid wuxuu ugu gorgortamayo xildhibaanadaas inuu asaga gacanta ku dhigo inuu asaga dad metela oo asaga danihiisa oo isaga maaragtay ay isku fikir dhow yihiin oo danihiisa ka shaqeeyo inuu soo darto Soomaaliya de anigu waxay la tahay horta dil dhahay hadday saa ku socoto waxay la tahay inayna rasi jirin laga dagaalamo maahe because hadii sidaas loo ogolaaday oo maaragtay ugu saasna baarlamaanku ku ansixiyo aniga caawintii rajo weyniga ma muuqato in oo xildhibaanadaas deegaanada dadka ay soo xulan karaan because ay soo xulan kartaaba already waa lagu gorgortamayba oo waxaa la dhahay waa in xildhibaanada anaga soo xulo sababta loogu gorgortamayay daaba waxay ahayd adiga qofku matali kara oo danahaaga matali kara ma adiga qofka jeceshay inaad soo dooran karin marka aniga waxay la tahay hadda intaana waxaba maaragtay aan baarlamaanka la geeynin qaraar soo baxay inay dadku ka dagaalamaan oo ka hadlaan oo dhan war dadkii anaga soo xulanayna waa sax laakiin qaraarkaas haduu meel maro aniga I don't see maxaa ku dhahaye magaalo shirtay waxaa sifay inay waxba samicno sameynayso because sababtii meesha waxa ku jirta shalay loogu gorgortamayo Sool iyo Sanaag iyo Cayn xildhibaanadeeda aniga aan soo xulo meeshaas miinin micna ku jira Soomaaliya miininka ku jirana waxay tahay aniga qofka dantayda aan ka dhax arko kan aniga metelaya kan aniga maaragtay isku fikirnahay baan soo xulanaya marka intaas ku dhaafaya walaal waxa aad baa mahadsantahay Yasmin waayahay insha allah kulli mar dhaweyd waa soo gabagabayn doonaa haddii ilaahaydmo dadka daawanaya waad mahadsantihiin insha allah Darwish TV wuxuu ka noqon doonaa telefishinada aan laga daawado wadanka gudihiisa dabcan waxaana ka shaqayn doona dhalinyaro ama wariyaal kala duwan barnaamijyada aan sameeyana kulley qayb waxay ka mid noqon doonaan barnaamijyada ka baxa xaqiiqdii sidaan hadda aan ka hadlayay meelaha xarumaha u ah caasimadaha maamul goboleedyada horumar badan ayaa uga kordha xaqiiqdii haddii dadku ay garasho leeyihiinna ama doonayo bulshada in loo qaybiyo cadaaladda waxaa laga taliyaa tusaale ahaan in loo qaybiyo awoodda siyaasadeed dhaqaale iyo dhan walba loo qaybiyo tusaale ahaan caasimadaha waan ka xusnay magaalada Muqdisho kale iyo kuwa maamul goboleedka horumar badan ayaa gaara maadaama ay xarumo u tahay sidaasoo kalena haddii xarumaha ama hadda xilligan electionka oo kale la geeyo deegaanaad cusub waxay u keeni kartaa bulshadaasi horumar sidaan markii hore aan idinla wadaagay iyadoo oo magaaladaasi noqota magaalo ay dhismaan hoteeladeeda dhismaan maqaaxiyahooda ay dhismaan macnaheedu ganacsiyadeeda sidoo kalena dhaqaale uu galo dowladeeda hoose sida magaaladaas oo kale ay u yeelan lahayd ciidan booliisa oo markaa damaanad qaadi kara insha Allah waxaan rajeynayaa kulli mustaqbalka doorashada ku xigta inay koonfurta Soomaaliya oo dhan gobolada waqooyi qaar baa laga codeeyaa oo dadka rayidka ay codeeyaan in ay gaari doonto Soomaalida dhinacan koonfur oo qolooyinka ugu musuqmaasuqa badan ba ay shan isleeyahay Soomaali waa ku nool yihiin in iyaguna gaari doonaan nidaam one man one vote ama one person one vote qof iyo cod inay gaari doonto taasoo qof walba oo Soomaaliya uu ku dooran karo xildhibaanka uu doono
sidaasoo kalena uu ku dooran doono siyaasiga uu u arko inuu madaxweyne ummadda soomaaliyeed uu u noqon karo. xaqiiqdiina dadku wadan walba iyaga ayaa go-aan ka gaara cidda u noqonaysa madax, qofkaasina uu hogaamiyo inta markaasi dastuurka ama sharciga uu u cayimay. waxaan rajeynayaa in arrimahan doorashooyinka aanu barnaamijkeygan aan kaga sii hadalno, iyo inay bulshadu ay ka foojignaatugnato dadka aadka u liita xaqiiqdii siyaasadda aanan fahamsanayn, aqoonna aanan u lahayn, maxaan ku rahdaa ku matalaya ummadda boosishinada siyaasadeed. xildhibaanku wuu ka muhiimsan yahay wasiirka, jago walbana wuu ka muhiimsan yahay, sababtoo tahay waa qof intaasoo qof oo degaan ama gobol ka soo jeeda mas-uuliyaddeeda haya. adduunka xildhibaanadu ma noqdaan qof aqoon aan lahayn, waa inuu noqdaa qof aqoonu leh, gaar ahaan sharciga naftigiisa fahmi karaya. waa inuu yahay qof fahansan aqoontii aan shaqadiisa xagga gobolka uu matalo iyo dowladda dhexeba waxa ay tahay. maraykankan jooga 24 saac waxaa ka hadlaya telefishinadu haddaa fiirisid ma aha xukuumadda, waxaa ka badan inta ka hadlaysa inta u ah xildhibaano, haddii ay yihiin sanadka iyo haddii ay yihiin kuwa representativeska, taasoo ah ayaguba inay yihiin dadka dowladda sharciga u dejiya. xildhibaanku waa sharci dejiyaha dowladda, sidaa la-aligeedna waa qofka ugu muhiimsan ee degaanka gaarka ah bulshada ugu jira. tusaale ahaan gobolkan aan ku noolahay, haddii ay dowladda dan kaa gasho ama xafiis xukuumadeed dani kaaga hagaagi waayaan, sida tusaale ahaan baasaboorka oo kale, mararka qaarkood way ku dhacdaa dadka soomaaliya in qof baasaboorkiisa hore waayo, ama dad aad ehelkaa la keeni waayo, qofka aad u dacwoonaysid waa xildhibaanka. haddii uu gobolkaasi dhibaatooyin wadooyin ka jiraan, waxaa laga ka hadla ee u dooda ama dowladda federaalka uga raadiya dhaqaalo lagu dhiso wadooyinka, waxa weeye qofka xildhibaanka ah. gobolkan minnesota waa gobol beeraley ah, tusaale ahaan dadka dowladda dhexe uga keena mar walba, yani xildhibaanadoodu markay la hadlayaan ummadda waxay yidhahdaan beeraha arrimahaasaan ka qabtay, caafimaadka waxaasaan ka qabtay. laakiin ka waran qof aad iibsatay oo qof idinka idin matala, ama ha ahaado wuxuu doono ha ahaado, lacag aad ka qaadateen, yani qofkaasi wuxuu idin matalaya ma laha. idinkiina waxaad tihiin dad jaahiliina oo xukun gacantii u geliyey qof kaleo isagana jaahila. xildhibaannimaduna ay noqotay nasiib darro, wax uu shaqsi ku shaqaysto halkii la rabay in dadka degaanka uu wax ugu qabto. marka waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed inay fahanto qofka xildhibaanka ah, yani nin imaama oo maanta masaajid dad ay u dhiibteen xilka saaran, xil la mid ah ayaa saaran oo ummadda oo u dhiibatay waxaas mas-uuliyaddeeda ayay saaran tahay. marka waxaan rabaa inaan ku dhiirataan ama ka foojignaataan arrintaasina. aniguna xaqiiqdii waxaan qabaa nin siyaasiya inuusan go-aanka xildhibaanka degaankaaga matalaya uusan go-aan ka gaarin. waa nasiib darro siyaasi madaxweyne raba ama mid ra-iisul wasaare raba inuu lacag kaaga iibsado xildhibaankaagii. waa nasiib darro, waa waxaada soomaaliya ka socda. sababta international community-ga oo ah nimanka wadankanba gacanta ku haya ay mar walba u leeyihiin ayaamahan u lahaayeen soomaaliya doorashaha ka dhacdo, sababtoo tahay xaqiiqdii waxay ogyihiin musuqa. waana waxyaalaha marka soomaaliya warbixinaha laga soo saarayo lagu sheegay inay tahay wadamada musuq maasuqa ugu horeeya soomaaliya, sababtoo tahay xaqiiqdii waxay ogyihiin. waxaa laga yaabaa xildhibaan walba oo heer gobol ama heer federaal lacag uu qaatay inay ogyihiin, taasina ay tahay sababta lagugu qorayo. dhaqaalana cidna kuma siinayso, cidna kuma maalgashanayso adduunka haddii ay dadku ku ogaadaan inaad tahay qof musuq maasuq ama dowladdiisu ay tahay. marka insha allah arrimahan waa kasii hadli doonaa haddii ilaahay idmo. maanta waa sabti dhinacayga kowda, berito naftigoodana insha allah iwill try inaan qof ku marti qaado inta uu telefishinka hawada uu kasoo geli doono haddii ilaahay idmo. dadka isoo waca ama barnaamijyadan ku taxalluqa iyo kuwa lasii wadaaga bulshadaba aad baan idinku mahadinayaa. barnaamijkan ma aha midaan like ama aan ku raadiyo, laakiin waa inaan midaan xaqiiqda aanu kaga hadlayno oo aan rabno inaan dadka aan mar walba aan wax ku fahansiino. insha allah waqtigan uu isbedeli doonaa haddii ilaahay idmo. xaaladdu sidan ma ahaanayso. wax badanoo waxaa laga yaabaa bulshada soomaaliyeed ayan ogeyn inay waddan gudihiisa ka socdaan ama ka jiraan. aad baan idinka mahad celinayaa. waa anigoo axmed laariya iyo barnaamijka aanu magacii hore waa ka bedelnay, aanu ugu dagacdarnay
sooyaalka darwiish t v intaas ayaan ku gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu